salaamay dhamaantiina isku soo noqod wanaagsan ku soo dhawaada channelkayga Mrs Fawziya xageed ka baxday Fawziya ku aaway Fawziya makeup-yadaadi aaway fiidiyowadaadi aaway gabdho badan loo qayay soo galay run ahaantii waa maasantihiin ma garanayo waxaan igu mahad celiya laakiin haddaan maalmo yar maqnaado isoo raadinaysiin waaw والله وكما سنتين دمانتينا وانيغا مهد علينا انتي اسو راديسي ادا يوم سنتين marka maanta waxaan niisoo sameeyay sunniyaha insha Allah daawada siyo oo fudud ayaan niigu soo sameeyay soo badankiina waa isoo weydiisateen sunniyaha siyo oo easy ee noogu soo gali siyo oo fudud aad u sameynaysid noo soo gali noo soo duub waa kana kan boqolkiiba waan hubaan inaad ka faa'iidi doontiin aan ka heli doontiin sunniyahan sidaan u sameeyay aniga xataa 10 daqiiqo ma igu qaadanin insha Allah inaad ka heli doontiin aan rajeynaya asxaabta khayr ayaan ni rajeynaya fiidiyoga hadaa ka heshay like gare subscribe gare waa maasan tahay wixii ra'yi ah commentiga iigu soo qor hawsha wacan sunniyaha saan u sameeyay okay asxaabta hadeertaan aan bilaabayna marka ugu horeysa aan waxaan isticmaalayaa qalin sunne kadib waxaan isticmaalayaa concealer iyo brushka aan ku hagaajin lahaa marka aan concealer tamariyo qalin sunnaha noocan waad isticmaali kartaan noocyadan anigu hadda waxaan isticmaalayaa noocan waxa la dhahaa benefit numberkiisana waa 4.5 hadaad rabtid sawirkiisa xagana si fiican kuugu soo dhigaya insha Allah marka waan bilaabaynaa hadeertaan waxa idinka ilaaway qalin sunnahan xagan wuxuu leeyahay meeshii lagu shaleynayay xagana waxa waaye meeshii qalin sunnaha uu ku jiray ma fahanteen marka xagan sana loo bixinaya xaga waa meeshii aan ku shaleyn lahay marka ugu horeyso kor ayaan u shaleynayaa kor zaid maaha laakiin waa la seexinayaa waxyar xaga qalin sunniya ayaan soo baxsaday xagan ayaan ka bilaabayaa runtii hadda waa sunniyaha sida ugu iisisan ayaan u sameynayaa ma adko miyaarad ina soo qaata ii fiican aniga aan isfiiriyo si toos ah marka ugu horeyso xagan aan ka bilaabayaa hoos ayaan hagaajinayaa si tartiib ah hore ayaan u imaanayaa kadib dhaxda ayaan buuxinayaa saad arkaysiin aniga sunniyayga way badan yihiin qalin sunnahana waa brown maaha madow zaid ah laakiin madow uu noqonayaa brown uu noqonayaa hadaad ka badisid madow ayuu isku bedelayaa qalin sunnahan inaba caadi maaha wallahi uu anfacay hadeertaan midkan uu iga dhamaaday soo mid kale aan soo iibsaday kana waaba tacbaan ayuu sii maraa goor ugu dhamaanaya marka tartiib ayaan gudaha buuxinayaa sunniyaha marka saas u mariyay hadeertaan xagga hore ayaan tartiib si qafiif ah u marnayaa marka saas u mariyo waan shaleynayaa kor ayaan u shaleynayaa meeshan timihiisa kor u baxaa waad badgaranaysaan وكاساسات أركيسان كدبنا هوس ونسير هجاجينايا هدي آدن تيما بدن كلهين حقان قلي سنها كور سان ugu jiidaysa laakiin aniga meeshan tima ayaan ku leeyahay uma baahni timihaygaas baan la shaleynaya iyo si uu iigu noqdo meeshan qafiif ma fahanteen waa fahanteen كذا وكاساسات أركيسان هادنا تنكله أنا سداس وسمينينا سو سنية ما عرفتين كمان بدنين سانتن وسمية وبان هادنا تن وسمينايا مركو ugu horeyso waan shaleynayaa kadibna xagan ayaan ka bilaabayaa
markasta sunniyahaaga say u baxaan unbaad ula sameynaysaa. kadibna dhaxda ayaan buuxinayaa. run ahaantii sidan waa sida ugu sahlan oo sunniyaha loo samaysto. saad arkaysaan makeup yar oo khafiif ah ii marsan. marka sunniyahaygana si yar oo khafiif ah ayaan u sameynayaa, uusan ugu ekaanin dee sunniyo maaragtay qalin sunne laga soo buuxiyey, ma fahanteen? so waxaan sameynayaa mid iska caadi ah, sunniyahayga loo malaynayo. marka waxaa ii dhiman xagga horeyna si yar oo tartiib ah ayaan u keenayaa. so haddii uu kaaga bato concealertaa lagu hagaajiyaa. marka haddii uu kaa bataa isdhihin uu kaaga batay, wada tirtir, wax ma dhibayso, waxaad ku hagaajinaysaa concealerta. iyo hadduu kaa xumaado xataa concealerta war kasta way kuu hagaajinaysaa. marka saan dheh, aniga badanaa saanaan dhahaa, kor ayaan sunniyahayga u qaadaa si aan si fiican ugu shaleeyo. macnaha xaggaan si uu haddii igaga bato si fiican ayaan kor ugu shaleeyaa, kadibna khafiif ayuu kusoo noqdaa. hadeertan sunniyaha tan inay ku yara badatay u eg tahay, ma u eg tahay horto. marka qalin sunnihii way nooga dhamaatay. concealerta ayaan soo qaadanayaa. concealerta aniga badanaa gacanteyda xaggan ayaan saartaa. marka waxaan soo qaatay hadeertaan brushkii, kadibna saan ayaan ugu taataabanayaa, labada dhinac ayaan marinayaa. kadibna xagga hoose meeshii aan ka bilaabay mariska qalin sunnaha ayaan haddana ka bilaabayaa, xagga dambe ayaan kasoo hagaajinayaa. markaste waa inaa xagga dambe soo hagaajisaa, kadib aad horay imaadaa. way jiraan dad xaggan ka bilaabo, laakiinse qof walba waa sida uu la qabsaday, laakiin sida ugu fudud wallahi waa sidaan. xagga dambe kasoo hagaaji, kadib xagga hore imaaw. laakiin horeydaas markaad hagaajisid xaggan dambe way kaa qaloocanaysaa. marka gadaal soo hagaaji, kadib hore imaaw si tartiib ah. so marka aad xaggaas dambe aad kasoo mariso, sunniyahaaga uu toosmaya, macnaha sidii u jiifay ayuu ula seexanayaa. laakiin xaggaas markaad kasoo bilaawdid toos ayuu u soconayaa. laakiin xaggan marka ugu horeyso qalooci ayaad soo hagaajisay, kadibna horay ayaad imaaday, qurux ayuu kusoo baxayaa sunniyahaaga. inay fahanteen aan rajayn doonaa. kolley waan dadaalay ani intaan sheegi karo waan sheegay. si tartiib ah ayaan u marinayaa concealerka. saad arkaysaan sunniyahaaga ayaad la simeysaa, ma fahanteen? wakaasa kadibna beauty blenderkii ayaan soo qaadanayaa. hadda ayaan foundation ku marsaday, so isaga ayaan ku riixriixayaa. maaragtiin hore macnaha gadaashaas korkaas waad ku taataabanaysaa oo keliyaata, ma u baahno. qaabka ugu sahlan ayaan la tusay, sidaan tijaabiya insha allah. wallaahi kadib waad awoodaan sunniyaha markasta inaad si khatar u hagaajisay, ilaa kor ilaa hoos aad intaad concealer marisid si khatar u kugu soo baxo. marka tanaan haddana sameynayaa. saad arkaysaa xaggan ayaan kasoo bilaabayaa, qalooca meesha ay maaragtay soo yara qaloocanayso ayaan kasoo bilaabayaa. kadibna horay ayaan toos u keenayaa. xaggan markaad ka bilaawdid ood hagaajisid, tijaabiya insha allah, iina soo sheega insha allah. saan haddii ay si sahal nii noqotay, haddii kalena dee si kalaan fiirinayna insha allah ay niigu fududaan karta hagaajiskiisa. marka si tartiib ayaad xaggan hore usoo wadaysaa.
fiirinaysid inay isla siman yihiin xaggaas si tartiib ah. muhiim maaha marka aad meel u socotid inaad sunniyahaaga samaysid adoo gurigaaga joogo samey tijaabi ma aha halka maalin aad u baahan tahay un inaad isku daydid sidaas waxba ma ku baranaysid markaad gurigaaga caadi iska joogtid xataa tijaabi samey waad keeni doontaa ma fahantay laakiin haddaad tiraadid un meel markaan u socdaan baroobeynaya tijaabinaya mase samaysanaya way kugu adkaanaysaa hal maalin ma aragtay ya wax kuma dhacaan marka insha Allah hal maalin ma aragtay wax kuma dhacaan marka tijaabi insha Allah wad adaa ugu dambaysta keeni doontid ya Fawziyadan samee ku dhahaysa xataa inaad ka khatarsanatid laga yaabaa waxay inta marka saas marka haddeertaan xagga hoose u sameeyay xagga wax yar iiga soo haray dibna halkan ku tirtirayo qalin sunnihi ayaan soo qaadanayaa kadib wax yar xaggan ayaan ku sii qurxinayaa ma aragtiin hadda suu isku bedelay sunniha kaale iska hadana sidoo kale xaggan waa isku dhamaatay xaggan kore wax yar saan ku dhadhaha kadibna waa shalaynaya sunniyaha run ahaantii iskuma ekaadaan aniga badanaa sunniyayga iskuma ekaadaan laakiin markaan sawir galaayo oo kaleeto macnaa video markaan duubo oon isfiiriyo sunniyayga inay isku egyihiin waan arkaa laakiinse marka aan sameynaayo sunniyaha waxaa is dhahaa tanaa kaa qaloocda maya tanaa qaloocda maanta tanaa wax sike laakiin markaan waxa dhammeeyo oon hagaajiyo waxay makeupkayga iyo waxayga dhan markaan dhammaystirto ayaan arkaa inay caadi yihiin sunniyaha laakiin inta ka horeyso waxaa is dhahaa maxaa ka qaldan sunniyaha maanta dhan waa soo toosiyaa waa hagaajiyaa markaan is dhaho iska daa waa iska caadiye iska qaloocnaade hal xabo markaas kadib ayaa ogaadaa sunniyaha inay iska caadi yihiin marka wakaasa sahal si yaroo fudud markaas marka aad saan u dhammaysid waxaad samaynaysaa highlighter ayaad soo qabsanaysaa brushka yar kadibna waxaad samaynaysaa xagga hoose ayaad ma aragtiin maniga leexdan miyaaradda inta taalo miyaaradda isku fiirnaa hoostiisa highlighter ayaa marinaysaa qurux ayuu kusoo baxaya wakaasa concealer badan iyo maanta dhan xaggaas korka soo hagaaji iyo xaggaas horta sunniyaha hadday jiran yihiin iyo haddayn jarnaynbo kor inaad ka hagaajisid uma baahno aniga badanaa kor kama hagaajiya xagga hoose bes ayaan sameeyaa so adigana isku day sameey sida ugu sahalsan noo soo geli sunniyaha sida ugu sahalsan ood u samaysatid mase loo samayn karo waad tiraadeen waa kana hooya marka insha Allah asxaabta inaad heli doontiin aan rajeynayaa insha Allah maalmahan waan maqnaay laakiin waan soo noqday ma aqaan wallahi ilaa hadda waxaan ku maqnaay ma sheegi kara aniga xataa laakiin saweykana waa iska caajisnaa ma fahanteen caajis waxaan isdhahaa berri wax duub maya berri dambe duub maya galabta duub maya hadhow duub adiga bilay ku gaartay ma fahanteen laakiin insha Allah hadda kadib ma dhacayso adiga wiigii 3 mar insha Allah isku dayaya inaan wax soo geliyo ila socda dhamaantiina khayr ayaan rajeynayaa waa maasantiin bye bye